السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال waxaan idin leeyahay meel kastoo joogtaan baa Allah idin xiftiyo Allahumma amiin waxaan halkani ka sii wadaynaa hadduu Alla idmo taxanaheennii aynu kaga hadlaynay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waana qaybtii 14aad waxaynu ku jiray on qaybtii 13aad kaga hadalay maahmaayadii kuweynu hadduu Ilaahay yiraahdo halka ka sii amba qaadi doonaa soo dhawaada waxay dhihi jireen odayaashii hore ama wax garadkii saddex baa lagu kabaa kow adduunyada yar iimaan baa lagu kabaa aqalkaaga oo yarna ardaa baa lagu kabaa aqoontaada oo yarna aamus ayaa lagu kabaa balayno fasiro adduunkaaga oo yar iimaan baa lagu kabaa waxaa laga wadaa waxaad haysato yar hantidaad haysato yar ama haddii hantida kugu yar tahay iimaan baa lagu kabaa hantidu ha noqoto mood ama ha noqoto noole oo saddexda caanaha macaan wax ka mid ah hayso ama mood iyo lacag iyo wax nooc ah hayso dadna haba haddii dunaa kugu yaraadeen hadday kugu yaraadeen qayla iyo orod waxba kuma helayside samir baa lagaa rabaa marka waxaa la yidhi adduunyadaada oo yar ama maalkaaga oo yar iimaan baa lagu kabaa waxay sii raaciyeen Soomaalidu iimaan alleh ayaa uur buuxsha Ilaahay baa ku deeqi karaa marka samir samee aqalkaaga oo yarna ardaa baa lagu kabaa waxaa midaana laga wadaa hadduu aqalkaagu yar yahay dee qurxiso ardaa ku hordhiso waxa weeye nidaamso kan baad u leedahay hantiyay macaan waa midaan hoy lagaa dhihin weliyahow wixii aadan lahayn laguma weynaado waxaad waayee joogtaba nin laaweelso waxba ma qaltaagin guryo kale iyo meelo kale intaa aad leedahay qurxiso aqoontaadoo yar aamus baa lagu kabaa hadduu aqligaagu iyo aqoontaadu ay yar tahay dee meel kastaba ha hadlin oo ha dhex ordin ummadda oo waxa weeye uun ceebta ha badinine aamus ilan af daboolan waa dahabe haddaad is og tahay aqoonta kugu jirtaa inay yar tahay ama aqliguba kugu yaryahay aamus ku kabo af daboolan waa dahabe aamus dad aqoon leedahayna dee ummadda u faa'iideey waxaa la yidhi oo kale saddex baa qurxisa kow hilib laf ha ku yaallo laftaa qurxisee hadalla ha dadnaado dadnidaas ku qurux badan yahay hablana ha xishoodaan xishoodkii ku qurux badan yihiin waayahay hilib laf ha ku yaallo kolkuu hilibku laf leeyahay oo laftaa uu ku gadaaman yahay dee qurux buu leeyahay tusaale ahaan qof baa kaa soo horbaxay hilib ma leh lafa aloogan dee ruuxi tuuru yeelanaya ruux marmaroora soo ma hadduu laakiin hilib leeyahay wuu singibtira yahay qurux weeye marka hilib lafa ha saaraado wey waaye hadal la hadadnaado hadduu hadalku xoogaa xanaf ama ceeb leeyahay dee qari oo hadal dadan oo asluubaysan ku hadal markaad warramayso waxyaale waxaa jira carabku inuu ku dhacayna fiicnayn iyadoo la wada garanayo ujeedkaaga haddana inaad qarisaa fiican hablana ha xishoodaan dee ragga laftii xishood waa lala rabaa laakiin dumarku way kasii xag jiraan oo waydun aragteen in lagu raray dhar waaweyn oo la yidhi wejiga iyo cukurada gacmaha inta ha banneeyaan salaada xataa inay kor u hadlaan lama ogola quraanka akhrinayaan aamuskoodu ha badnaado oo isdhuubkoodu ha badnaado waxaad ogaateen dumarku hadday fiicnaadaan adduunka oo dhan baa fiicnaanaya dumarku hadday fasahaadaanna adduunka oo dhan baa fasahaadaya sababta waxa weeye iyagaa ah waxa wax soo saarka ilan waa hooyo ilmaha iyadaa barbaarinaysa wax iyadaa kala wada hadday marka tareenkan dhaqaaqaya weeyaan hooyadu ay xumaato ummadda dhan way xumaanaysaa
marka waxaa la yidhi dumar ha xishoodaan. waxaa kaloo la yidhi saddex waa laga ilaaliyaa. kow, ku ururso, ku aarso, iyo ku amar ku taagle. midda koowaad wuxuu yidhi ku ururso. maantaad joogtaa madaxweyne tahay, dadka maalkiisa iyo hantidan dowladdu leedahay guryo ka dhiso. dee waa arrin culus, taa marka waa laga ilaaliyaa. waa laba, ku aarso. kuwaad beri isku dhaceen hooyada iyo maxayo kambab inaad ku siiso, ila maanta dadka xoog badan tahay lama ogola. kol haddaad ummadda madaxweyne u noqotay ama mas-uul, dee wixii dad idin kala gaadheen adiga hadda awooddii haystee iska cafi, oo kursigan iyo awooddan aad haysato ha ku aarsanin. hadday taasi dhacdo adna berri waa lagaa aarsan doona sooma, marka ha ku aarsanin. ta saddexaad waxaa weeye ku amarku taagle. maanta haddaad joogtay waa carar hadla, yaa hadli kara dee aniga hadla shafkaad garaacanaysa, taana lama ogola iyadana. waxaa kaloo la yidhi 3 makhraatigooda lama ogola, oo waa 3dee: lugjiid, waxaa weeye nacfijiid, iyo naasjiid. 3daa makhraati ma soo galaa. balaynu fasilo. lugjiid waa nin gabadh qaba, deetana reerku ka qabay iyo reer kalaa isqabtay. ma nin baa soo degiy marka kiisku oogi? maya. waxaa la yidhaahdaa lugjiidoo ninka gabadhaa qaba, hadday reerka gabadha uu ka qaba isqabtaan makhraati ma geli karayo. nacfijiid waa nin wax la siiseeyo oo nin uu gacanta ku hayo. ninkii gacanta ku hayay iyo nin kalaa wax isku dhoof sameeyey, haddaad tiraahdaa ninkanaa makhraati noo noqon, dee waxaa weeye ninkii nacfiga siinayay unbuu u furi makhraatiga. naasjiid waa nin la dhalay, ma niba reeabtigii kiis ku oogi? wiil waxaa weeye baa tiri makhraati noo noqo, dadku makhraatiga ka noqonayana waa reeabtigii iyo adiga, dee abtigii buu u exani, marka kuwaana makhraati lama gashado. waxaa kaloo la yidhi 3 baa abaar u ah. 1 abaar geel, abaar dumar, iyo abaar rageed. 3daas 3 baa abaar u aho. waxaa la yidhi abaar geel ma rabtaa waa ilka la'aan. abaar dumarra waa ubad la'aan. abaar rageedna waa arrin la'aan. aynu balqeexno oo aan dul istaagno. abaar geel waa ilka la'aan baa la yidhi. geelu saad ogtihiinba dee waxun buu ruugaa, doog iyo daraacba geeduu ruugi iyo wuxuu raamsada ma waayo. duu laakiin ilka beelo oo neefkii geelha ilka la'aan noqdo, dee wa baktii. marka geel abaartii waa ilka la'aan baa la yidhi. abaar dumarra waa ubad la'aan. sababtu maxay tahay? raggu miinaan iyagoo laftooda saas ahayn? waxoogaa way kala geed adag yihiinoo qofka dumarka iyo waxaa laga yaabaa 40 sano ka badan inay dhaqmaan noqonin waxba dhalinba, laakiin kan intuu geed ka tallaabayo wuu dhali karaa. 80 kuwa ku dhalayaad arkaysa. waa dhowtana waxaan arkayay nin 125 sano jiro oo gabadh aroosayna waan arkay. waxaa kaloo la yidhi abaar rageedna waa arrin la'aan. qofka raggii hadduusan arrin lahayn abaar ka badan ma jirto. sababtay tahay si uu noolaada waa adkaanaysaaba. waxaa kaloo la yidhi 3 baa rag u fiican. 1 nin dadkiisa u nacas ah, nin cadowgiisa u nacab ah, iyo nin naagtiisa u nugul. sidee? nin dadkiisa u nacas ah, yacni aan waxba ka hoos qaadaynin oo xumaantada ay ku samaynayaan iyo waxaada waxba aan ka soo qaadaynin camal doqon u ahba. ka nacas oon nin dagaalamo tolkii ka soo horjeestaa ma ahee waxay ku sameeyaan oo dhan wuu iska dhaafaa. 1 laakiin cadowgiisa nacab uu yahayoo cadowguu ka cabsadaa. naagtiisa iyo xaaskiisana wuxuu u yahay nin nugul. hawsha la qabta, garab taagan,
caruurta la koriyo oo ka nasiyo oo waxa weeye dee hawsha la qabanaya ninkaas rag ugu fiican baa layidhi waxaa kaloo la yidhi dumarkuna waa 3 kow ku toosa kula toosa iyo iska toosa ku toosa waa gaari waa dhabeel dumar waa qof feeyigo diyaar ahoo oo 9 saac oo habeenimo kacaysa kolkaad adigu soo toosto assalaamu calaykum tiraahdaba shaah baa ku ag yaalla kulul dabaaday kuu toostay dee hiraab bay kacday soo ma kuu toosaa la yidhaahdaa kula toosa xilligaad kacdan bay kici lafteeda ma xuma adadaan qof bakti ahayn ood xilligii salaada aad kacday yadna way kici durbana dee cuntada way diyaarin iska toosa laakiin in la toosiyaa mooyeen xilligay kacda ay ma dhowa 3 saacadood oo subaxnay jiifaysa haa waa qof maaragtay hurdo weyn weeye maamahyadeeniina halkaa ha inoo joogeen waxaan rajaynayaa inaad fiican tihiin guulaysta